waa carad dhulbaanto 40,000 oo military oo waxaan ku iri meel walba la isaga keenay oo hanti ay fadhiyaan hadeertee waxaan ku iri wallahi inaadan guumeys gaari karin koowle xoolanimada inta iska deysaan waxa aflagaado colna way ka colaadna way ka kaxaysaa nabadna way ka kaxaysaa colaadna waxba kaaga ma tarto waxaanu caliye idinka qabanay xaarka isku xijiyo waxaanu caliye idinka qabanaysa inta iska deysaan iyo cawaanimadan ka shaqeeya dadka wada dhex joogtaan hargeysa sigad ku jirtee naga hargeysa weerka cas ka soo xidhay dabka shidaye halka moosa ciidanka fasaxda ka helayga gaarsiiyo hargeysa korkeeda military fadhiyaan oo kala goosato kala urursatay ka shaqeeya inaad hargeysa labadeeda daamad heshiisiisaan waad fahanteen sooma xoolo wasaybatiin wallahi oo billaah taala waligay intaan waxa igu dhacay identity crisis yani saa markaan ogaanay waxaan ma wixii ku dhalayba imika dadkan meed ka soo ma dadkan aad ku dhex noolaan jirta waan isla yaabanay ma waxaanaad ka dhex timi ma dadka noocan waa qol meel bagalaad galaysaa mid kale ismaba qabanayaan xitaa mid dhaanta xitaa male mid dhaanta qof dhaan xitaa male maxay tahay cawaanimadan maxay idinku dhacayna ka fadhiista dadka kufaariya isu timid kawadista dadka fart idinkaa is eeday waa is eedeen waxaan waa shuuradiini idinkaa is eeday cid wax idin yeeshay ma jirto cid wax idin yeeshay ma jirto fiima qoojo idinkoo tirinay waa idin arkay fiima qoojo ma taqaanaan farteeda xitaa cidida uskageeda ku jira wallahi inaydan ka gaari karin sababtaan idiin sheegaya fiima qoojo iyadoo cid caayas horta anigu ma arag laakiin waxay joogtaa magaaladeedii waxay samaynaysaana waa wixii naag kasta oo dee sidiina dhararaqla ma sheegaye naag kasta oo karti leh oo bini-aadantinimo leh oo damiirlaho magaaladeeda in lagu soo weeraro oo caruurteeda iyo dadkeeda lagu horlaaya waxay samayn lahayd kuwa qaxay maatada ah ee dee la gura caruurta iyo lagu daro dadka waaweyn ee duqeyshiga ma sheegay naag kasta waxaa samayseen markii laydinku soo weeraray hargeysa sahar halgan iyo naagaha kale magaalada jooga waxay sameeyeen markii hargeysa madaaficdiya diyaaradaha lagu duqeeyey kaarayaasha soo madaxa kamid ah fulino alla dhalinyaraadayadu alla dhiirana soo kumaydaan heesaynin kuwii naag wal oo gurigeeda lasoo weeraraa waxay samayn lahayd bay samaysay sidiina talaagada cad xagga shakamay marino guri mar oo cad oo talaagad baraf ya dhiladan iyo waxaanaad ka sheekeynaysaa wax bari hore la iskala tegay qori bay qaadato jiidaasay joogtaa naagtii fiima quujo raadinaysaa marka hore fiima quujo dadkeeday midaysay 15 sanadood buu dhulbahanta bilaa kala daadsanaa oo waliba gobonimo eegay oo waxa ku badan isqabashada ku badan warbal horta kuwanayna ood xige warbal harti ya war halkaaba ileen dhul ogaadeen waxa xukumaa dhul isaaq leeyahay halkaaba dhul isaaq leeyahay ogaadeen xukumaaya oo dhulka ugu balaaran war ileen bal aynu la eegno cagta u dhiga ya 15 sanadood dadkeedii way midasoo iyagoo wada socdo ay waday kula timide adigu waa adigan tii kuuga ood xigtay doonaya inaad halkan uga tirisay media halkan ka cayde marka horena adaa kala qoqobka umadaada ku ridiyay dadka iska daa inaad iyada soo dhaweyso wuxuu ogolaato oo aad wax ka siiso wixii aad wada dhisateen ya kuwii kula lahaa fikradda kula lahaa gudaha kugula jiray aad dhiiga wada sheeganaysa inaad lahayd isku nin badda ka soo muusayo sijaayad ya nin sijaayad ku fadhiyo badda ka soo maaxay baddu sidataana wada dhalay kuwaad lahayd baad leedahay waa faqash iyo waa cadow iyo Soomaaliya inagu wadaan iyo waa aad tiri reer hebel mooyaan inta kale isma arki kareen mala gaari kara fiima naagta fiima gaari kartay ka mid ah media ka caytantaa waatee hadda qori sidate isaaq inta midayso tolay isaaqo midooba oranaysa meel inta isugu keento ya intay gogol nabdeed fidiso isaaq ku wada fadhiisto hubiya military iyo saarad ka midaynaysa waatee mid waliba halka waxay la soo fadhiisatay habar Yunus baana basaastay ciida galana soo eegay iyo habar jeclay waligii baanu kama idin kala bixi jiray ma idinkaan waligii hooyadii wasi jiray ma eedadii baanu fuuli jiray wanaga aabihiin sii jeedine way idinka halka la soo wada fadhiistay inta la xog soo dhigteeday ma idinka cid kala gaari karo wax ka sheegi kara nayaar intirsato dir qaramoon cid idinka wallahi billahi taala waa lagu qoslaatiin maad baatiin
bal kuwa kaba ku faanaya de waxay isugu faanayeen reer tolkay kabaanu kala baxnay madaxweyne meel maray bal qofka taariikh de ilaahay bay kala sarreysiyay marka hore waa dhulbahantiisa wallahi ilaahay bay kala sarreysiyay ilaahay magaciisa nin sooma ku baanaya ingiriis aabahay baa la dagaalamay awowgay baa la dagaalamay dhulkayga malaha taakan kaba ogoli ya iyo gabadha ku bal qofka taariikh ka dhiganaya nin meel marayaanu kaba kala baxnay kabaanu xadnay kabo هبي وانا idinka kaba idinka xadnay waanigi aabaha meel taagay kaba war wixii idin dhalay idinka goblomay taariikhda waxa la idinka dhigay oo idinka tageen dadkii idin dhalayna kaba xadeen Soomaa bal dadka cudud dadka ubadkoodii iyo maxastoodii iyo maatadoodii inta la raray reer islaameed la dul dhigay ya oo 8 balood la bariyay war naga taga ee xitaa garan waayo horta bal inta fadhiga la isku wareystay war diblomaasiyad dhulbahanta ah ula tagtaan war horta bal maatadiina soo qaato og dhulbahanta dhan ha idinka wada xigay horta bal og soo fadhiista oo dabeetana miir qabka kula hadla dhulbahanta oo wareysto waran maad reeyal haday naga xumaatay wixii naga xumaaday waa saxayna inaga is oodiye ehli xigni saynu wax nidhaana dhaha garan waayay ee intay caruurtii duubeena kuwii gawaadhida iyo kaariyaasha saaraa qaar yiri waa habar yorisa ka roga kuwan waa ciida galo hubka inaga qaadayaan qolada halka gashay u geynayaan ee caruurtii reer iskuulada ku jirtay sekondariyada intay soo xaabiyeen jiidageey ee ku shuf beeliyay ayaa waxaad leedahay halkay caruurtoodii dumarka arkay caruur yar yar oo caydiyaho dad gadoodsan mindi la dhacaya ee maskaxdoodii iyo kartidoodii iyo hadalkoodii waxay qaban lahaayeen ba inta ay ku soo ururtay aabaha baan kala bax naon hay ku dareen gaba qofka kaba qaad ma amaanba ilaahay idin sameeyay baan idin ku dhaariyay nabi maxamed xaqa ku soo saaray ee naftii dhiig idin galiyay ma qof masiibo ku dhacday ya ama ha saxsanaada ama ha qaldanaade ma wuxuu meediyaha la soo fadhiista aabahay baa kala baxay nin meel maray ma amaan baa kaba in la xadaa bal taariikh xumada xitaa qofku wuxuu isagu ku sheekaynayo meediyaha la imanay ma garanayo amaantii cayda ma kala yaqaanaan dadkani wallahi inaan kala aqoon weydinka meediyaha la soo fadhiya hebel baanu kala baxnay dadka meediyaha la imanay hebel baanu kala baxnay iyo kuwa la leeyahay waxba shirqoosheer iyaguna intay weerka cascideen ciidanka fasaxada haya dadkani maxaa ka siiyana maxaa idinka khaldan maxaa cabteen ha nacala la taariikh xuntii uf